soo dhawaada xalqadii shanaad ee sheekadii maanafay saaxiibayaal xalqad waxay noo marisay Axmed oo waxyaabo badan maskaxdiisa dhex mushaaxayaan maanafayna ka shaqsanaa inay tahay gabadhii uu ku riyoon jiray mustaqbalkiisa laakiin se inuu mudanayo wali shaki ka qaba xaafadani wali waa sideedii Sahre Yuusuf ayaa ku hamiday markay soo dhex gashay saraha Xamarweyne waa kuwan luqluqyadii isu wada ekaa iyo sarihii gaboobay ee la mooday in uu isku fuundi dhisay fuundi aan ahayn kuwa hadda jooga ee farshaxanka yaqaan xisaabtana aan ku darsan in loo baahan doono wadooyin baabuurtu maraan iyo dariishado ay ka soo galaan neecawda iyo iftiinka qoraxdu laabkani sow ma ahayn kii gurigooda looga weecan jiray sugbal hadda aaway sax waa isagii waa kaas masaajidkii qarniyo hore la dhisay iyo macdarkii ka sokeeyey sar nuuradii bari hore la mariyey roob iyo dabayl ka holhooleen ayay is hortaag hubsatay in ay tahay halkii ay u socotay jaranjar dheer oo dhinacyada ka ilka dhacsatay bay kor u raacday dabaqa saddexaad markay joogto ayay albaab furan garaacday maanafay oo dadka daaradda fadhiya ku jirtay baa farxad kala hortagtay iyadoo ku korle way Sahra ii warana baaye yaa kaaroon maanta waa soo dheeraatee waa la isku soo booday dhabanada la iska dhunkaday si diiran bay u soo dhaweysay maanafay qolkeedii baa la fariistay sheeko dheer baa la galay waa sheeko dumareed la kala boobayo marba mid laga dhexgelayo qosol iyo sawaxana lagu larayo maanafay meesha kama filayso wax dhaafsiisan saaxiibadeed oo booqasho ay shalay ugu tagtay ugu gudaysa mid la mid ah saan ku gud saxan ku gud sida ay tiraahdo mahmaahda banaadirgu laakiin Sahra waxaa maskaxdeeda ku rafanayaa hawl midaas aad uga weyn marba marka ka dambeeya waxay ku dadaalaysaa sidii ay majaraha sheekada ugu duwi lahayd meel uu ka furmi karo irid doqon magarato ah oo ay ku gasho arintii ay meesha u timi ugu dambayn iridkii bay heshay waxay furtay albaabkii dhalinyarada iyo jacaylka maanafayna durbo way la qabsatay si fudud bay ula jaan qaaday si weyn bay uga heshay waxa laga sheekaysto oo ay ka jeceshahay baanba jirin adigu waligaa wax ma jeclaatay mase lagu jeclaaday maana Sahra ayaa su'aashaas ku gaaday markay soo gaartay waqti ku haboon allahay kale ayay maanafay ugu jawaabtay hadda ninku jecel oo ku dhimanaya hadduu ku yimaado maxaa samayn lahayd maanafay waxay ku jawaabtay waan soo dhaweyn lahaa le see waaye haddaba anigu waxaan arkay nin indhihiisa kaa jecel meel uu kaala hadlana waayey adigay ku jirtaa saad yeelaysi ha ismartiyeen dheh gacmo furan ku soo dhawow waan ku soo dhaweynayaa ayay tiri maanafay marka ay sidaas ku jawaabayso maana waxay u haysataa Sahra hadalkaasi inuu ka yahay kaftan iyo maaweelis waxay islahayd kaftanka sii macaanee markiise Sahra hadalka kaftankii ka saartay una tustay arin dhaba maana way soo gariirtay intay qosolkii iyo codkeedii macaanaa badishay bay tiri abay ani jecel iyo nin shaqadayda ma aha Sahre Yuusuf siyaalo kala duwan ayay isugu dayday inay maanafay ra'yigeeda bedesho in ay wax la qabato ninka ay uga warantay inuu jeclaaday adi hal mar le iska arag hadduu ku cajabin waayana runta u sheeg hay ugu daalin dheh si uu kaaga qanco markay fikradaas u jeedinaysay Sahra waxay islahayd mar uun ishor fariisi kadib isaga maskaxdeeda bedeli doonee waxay ugu tilmaantay nin qaali ah oo aan noociisa la heli karin dhan kastoo laga eego dumar badan oo daba ordayana iska diiday uma sheegin ninka ay sheegaysaa inuu yahay injineer Axmedkii ay habeen hore aragtay waxay u gashay faallo dheer oo jacaylka u tusayso wax la caabudo oo aan nolosha la'aantiis dhadhan iyo qiimo lahayn waxay uga sheekaysay dhalinyaro badan oo isticlaatay kadib isguursaday noloshiina ku dhamaystay farxad aan caadi ahayn sheekooyinka noocaas maanafay hoos ahaan way macaansanaysay hase ahaatee waxay ku adkaysatay diidmadii qayaxneed ee ay ku gacansaydhay mashruucii Sahre Yuusuf uma sheegin sababta ay ugu dhaga adeegtay ficnaan lahayda in ay sababtaas u sheegto wanaagsanaan lahayda in ay shaaca uga qaado in loo calamo saaray in adeerkeed in alaabtii arooska la diyaariyay aqalkeediina lala sugaayo muddo gaaban ee ka dhiman xiritaanka iskuulka arintaas Sahra lama socodsiin
waxaaba dhibaya sheegidda iyo hadalhaynta qorshahaas oo dhan. xataa marka ay nafsadeeda isla sheekaysanayso way ka kashaaftaa. ma jeclaa in ay soo xasuusato mashruuca guurkaas. waxay isku daydaa in ay is-ilowsiiso sababta u weyn ka sokow ra'yiga Sahra u soo jeedisay sidiisaba ugama muuqan mid istaahil ah xataa sabab lagu diido in la sheego. maana hoos ahaanteeda way ku riyootaa inay hesho nin ay iska helaan kadibna jacayl isku guursadaan. sir ahaanteeda way macaansanaysay markay Sahra u sheegaysay in uu jiro nin sheeda ka jeclaaday. hase yeeshee waxaa la xumeyd inay aqbasho nin ayna aqoon oo qof kale isu geeyay. allow qof aan wax ogeyn ha cadaabin. yaa u sheegay in ay arrintu intaas ka khatarsan tahay, in haddii qorshaha guurka Iikar Sahra lala socodsiin lahayd ay ka badbaadi lahayd dhibaato weyn oo u soo dhakanaysa, mushkilad ballaaran oo ay ula soo gurguurayaan maalmaha ku soo fool leh. Sahra haddii loo sheegi lahaa qorshaha guurka Iikar way ka noqon lahayd hawshii Axmed u dirsaday. walaalkeed waxay ku wargelin lahayd oday candhuftaada dib u mowqifka maanta uga falcelisay Sahra waxaa ku abuuray yaxyax iyo niyad jab. uurkay ka gubatay markay aragtay raadka hadalkeedii ku reebay wejiga Maanafay. waxay aragtay yartii oo bedelantay, sheekadii iyo qosolkii joojisay, indhaha ay ku eegaysana la moodo in ay ku leedahay oo kaalay saaxiib, galabta sababtii aad iigu timi ma waxay ahayd ruufiyaannimadaas? su-aashaas ayay Sahra ka akhrisay indhaha Maanafay. markaasay bisad iskala yaraatay. booqashadeedii bay ka qoomamootay. arrintii ay Maano kala hadashay bay ka shalayday. wax kasta dib ayay u gacatay, isaguna canaanatay. booqashadeedii galabta, ballantii ay Axmed ka soo qaaday, yeeridii ay Maanafay gurigeeda ugu yeedhay habeenka Axmed arki doono, kulli way ka wada qoomamootay. walaalkeed Axmed jaamac iyo nafsadeeduba way uga carootay. bal eeg iimaan laawahaasi ceebta uu qoorta ii geliyay ayay iskula hadashay. anigu tumayhiye maxaan uga yeelay wax aan shaqadayda ahayn? naagnaagtiisana ma aqaane, hadduu doono weligii yuu guursan ubadna dhalina. sidee aniga sharaftaydii ku soo ceshan karaa? yaa ii soo celiyaa warkaygii iga khasaaray? hadal wuxuu ammaan yahay intuu uurkaaga ku jiro. qiimo kasta waa ku bixin lahaa haddii warka iiga baxay dib laygu soo celin lahaa. waa tana yartii galabta xushmadda iyo farxadda igu soo dhaweysay, kalsoonidii iyo ixtiraamkii ay ii haysay daaqaday ka tuurtay. dadkoo dhanna way u sheegi doontaa, indhaheedaanba ka garkaa. halkaasi markuu fikirkii la sii marayay ayay haddana isqabatay. ha u sheegto waxay u sheegayso. maxaa iga galay? ma awal baan meelahan wax uga baahnaan lahaa? iyada uunbaa xamarweyne ka aqin. iyaduna hadda kadib kolayba way iyasi doontaa, igana go'i doontaa khasaaro. maxaase kaa galay? iyadaa istaqaan. guriga uun sidee uga baxaysaa ceebtaada? allahayow maxaa i qabsaday? axmedow balaayo ku naaga doonatay. waan garanayay inuu jar iga tuuri doono. mar kale ayay maskaxdeedii wareegtay. sug bal hadda, talow maxaan ku maslaxaa? sidaan ugama tegi karee? see waayo cunugtan ciyaal maamada ah oon cir iyo dhulba kala aqoon, miyaad ka caqli badin weyday? Sahra dhowr ilbiriqsi oo kale ayay maskaxdeeda kasii shaqaysiisay. waxay baadi goobaysay jar ama xeelad ay ku soo ceshato kalsoonidii Maanafay. fikrad baa kadis ahaan ugu soo dhacday. fikradiiba aad u cajabisay. farxaddii ka duushay baa wejigeedii ku soo noqotay. intay qosol dheer oo lama filaana ku dhufatay ee Maano boodada ka dharbaaxday, daymo xiiso badan oo qosol wadatana ku jaleecday ayay ku tiri, Maanafay may ku dhaheen galabta waan kaa raayay maahino? maana oo aan qosolkii uga dayan, qalbigeeda riyaaq aan badnayn soo galay oo intii hore wax ka soo yaro dhawaatay ayaa su-aal ugu jawaabtay, maxaa jirana? filim fiican baan kuu dhigay noox. see camal? waxaan kuu sameeyey nin boqor ah, dabci wanaagsan, dhalinyaro ah, lacag badan leh, jago wanaagsan jooga. intay codkii si isyeelyeel ah qalbiga uga soo saartay bay uga gabagabaysay, jacaylkaagana u dhimanaya. adile ma ii samaysay mise waa ninkoo run ah? Sahra intay qosolkii dheeraa ku celisay ee garabka shishe soo qabatay bay tiri, iyadoo sin cunug la koolkoolinayo u ruxruxaysa una soo dhawaysanaysa. masaakiin Maanacadey intay ruxruxudii ka daysay ee wejigeeda toos u fiirisay ayay haddana u raacisay, adi maa kula tahay adduunka maanta la joogo in laga helo nin tilmaamahaas oo dhan ay ku dhan yihiin, wax dhaliil ahna aan lahayn?
ani maxaan ka ogahay adile warkaa ma ii keeninoo bay tiri maanafay iyadoo kala garan lahaa waxay rumaysato iyo waxay beenaysato. adiga waxaa la rabay in aad idhaahdo malaa'ig miyaa ninkan aan haba yaraatee wax nusqaana lahayn ee isku darsaday dhallinyarnimo qurux jago weyn lacag dabci wanaag jacayl loo dhimanayo oo uu kuu qabo wax dhici kara miyaa hadda been waaye miyaa nin la sameeyey uunbaa tilmaantaas yeelan karaa sida atoorayaasha filimada iyadoon weli qalbigeeda shakigii ka bixin qosolkiisa lagu daartay oo wejigeedii furfurmay bay tiri adi laakiin seed ku keentay inaad been ii sheegto. Sahra bilowday iyadoo kursigii ku dhacaadiidsanaysa filir hindi ah galayno marka atooraha aad buu jeclaanaya atirishada iyaduna ma oga marka dambe atirishada loo sheegaya inuu jecel yahay laakiinse ka cabsanayo way diidaysaa. waxaa la leeyahay naahoy yaan nabsi ku helin lihi iidna maxay dhahee way jajabinaysaa laakiin marka dambe nabsigii baa helayaa iyadii baa soo jeclaanaysaa isagoo naag kala guursaday markaasay dhibaato badan kala kulmaysaa waxay ka shalaynaysaa diidmadii ay markii hore diiday. weli waa jecel yahay miyaa maya isaga jacaylkii waa ka baaba'ay bax buu dhahayaa miskiin ihi dambe ma jirta xaliifadan waa u dhammaatay hadda atirishada adigay ku ekaydno markaan ku arkay baan filimkii soo xasuustay waxa ay gashay inaan kaaga sheekeeyo filimkaas haddana waxaan is iri bal tijaabi maana waxay samayn lahayd hadday gabadhaas meesheeda joogi lahayd. hadda waan ku arkay atirishadaas camal baa tahay markay halkaas maraysay bay intay si xiiso leh u fiirisay oo dharbaax yar oo ciyaaraha ku dhufatay iyadoo qoslaysa u raacisay adi laakiin qalbi dhagax aad tahay maana ma naxaysid haye intay markeeda qosol ku dhufatay dharbaaxyadiina tu lamida ugu jawaabtay ayay tiri aradiga Sahra may ku dhaheen ad qabriga ma qodmaayo. Sahra way qosashay maanana way u jiibisay maana waxay mooday inay Sahra iyadu u qoslayso kaftankii ay ku tuurtay awgii yaa u sheegay inay iyadu u qoslayso in ay isugu hambalyeynayso indha sarcaadintii ay ku guuleysatay goolkii ay ka dhalisay godkii ay ka baxday gabadhii ay ka caqli badisay hortii waxay u mintidaysay sidee mar uun godka uga baxdaa ee sharaftaadii u soo ceshataa. haddase markay taas ku guulaysay fikrad kale ku soo dhacday farxaddii baa yeedidiilo cusub ku dhalisay waxay dib u haweysatay in ayna sahalkaas uga harin hawshii weyneed ay meesha u timi in ayna guuldarradaas kula noqon walaalkii ay ballanka ka soo qaaday. wadooyinku mid kaliya ma ahee tii hore hadday soo xirantay ma tu kale ku tijaabisid ayay istiri afka way ka sheekeynaysaa uurkana way ka fikraysaa farsamo cusub bay u faalinaysaa. ugu dambeyntii fikrad bay heshay waa in ay horta sheekada bedeshaa saxan cusub u saartaa waxaan oo dhanna ilowsiisaa bad kale dhexgelisaa marka islowdana filinka dhan kale ugu rogtaa. filinkii cusbaa bay u saartay sheeko maanta wargeyska lagu soo qoray falanqaynteed bay u gashay riwaayad galabtaas ii dhehdeed raadiyaha laga sii daayay bay u ammaantay dhar moodo ah oo soo degay bay la socodsiisay barafuun armaajada u saarnaaba intay soo qaaday su'aale ka weydiisay mid ka dambeeyey kana udgoon bay u tilmaantay markay u hiyi kacdayna ka ballan qaaday in ay siin doonto maana farxad iyo raynrayn bay warkaas oo dhan kula qaybsanaysay kuna soo dhaweynaysay su'aalana uga dhiibanaysay ra'yina ugu darsanaysay ugu sii malabsanaysay u hanqaltaagaysay in loo sii wado. Sahrase markay ulajeedadeedii ka gaadhay ayay intay saacadda eegtay saaxiibteed ku tiri maana waan dahay waan baxayaa markaa kowdhe maxaa inoo ballan ah goormaan is arkaynaa macaanay adile ii imow markaad nafsi hesho ayay si daacadnimo leh ugu jawaabtay maana waayahay laakiin jimcadan adiga ku casoomayaa kadibse khasab anaa kuu iman doonaa. abbay ani bixid layma ogolo ma iga dhaaftid adigoo mahadsan micno ma leh macaanay ma soo daahaysid haddaad doontid maalinta iska joog habeenkii la isla cashaynaynaa maqribkii baad ii imanaysaa markaan soo cashaynana aniga gurigaaga ku keenaya isla fiidkiiba hayadhe macaanay hayebal ayay hoos u tiri iyadoo labalaabotinaysa oo hoos u fekeraysa. sheekadu intan ayay ku joojinaa tan iyo xalqadan xigta nabadiino.